بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال والد السلامي سلامة إسلامك. حلقة وحلقة لبات مشروع النهضة، مشروع الدبوليسك الصوماليات، أما مشروع الدبونولين تا أمد الصوماليات. مشروع النهضة ومشروع عادي عاد أبلارن سلامركاسنا أن دونينو إن إلهي سبحانه وتعالى أو نوسهله وددي دبوليسكا marka sidaas darteed ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay mashruucan ay san moogaanin ay u dhigan nuglaadaan oo ay daba socdaan oo ay ka bixiyaan commentigooda iyo aragtigooda ay ka bixiyaan isla markaasna ay fahmaan. mashruucani waa mashruuc umadeed oo mashruuc naga wada dhaxeeya, ma ahan qolo gaara inay leedahay qabiil gooni inuu leeyahay. waa mashruuc lagu dhisi karo min alfardi ila almujtamac wa ila ad-dawla. fardi, mujtamac, dawlad lagu dhisi karo waaye. marka mashruucani waa mashruuc aad aad u qoto dheer, isla markaasna haya afkaar cusub oo ugub, isla markaasna su'aalo badan la iska weydii karo. mashruucani ma yahay mashruucii ummadda anfacayay ma yahay mase maadaama xalaqadii koowaad aan ka soo hadalnay waan uga soo hadalnay fahmiga mashruucan iyo waxyaalaha qotada dheer uu ka hadlayo iyo inta uu qaybsamayo. qaybtan labaad waxaan uga hadlaynaa haddii alla idmo albidaayatu aljadiida. halkeen ka bilownaa mashruuc nahda. mashruuc marka maadaama uu weyn yahay, wax walba waxay leeyihiin aasaas ayay leeyihiin. gurigu haddii uusan aasaas lahayn ma dhismo. ugu dambaystana hadduusan aasaas weliba adag hadduusan lahayn waa kii duma akhiiran, ugu dambaysta kii dumo waaye. marka waxaan ka bilaabaynaa haddii alla yiraahdo albidaayatu aljadiida, bilow cusub. marka bilow cusub, fikir cusub, haddii labadaas laysla helo waxaa ka imaanaya natiijo cusub ayaa ka imaanaysa, natiijo cusub ayaa la gaaraya. marka walaalahayga Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ama gudaha wadankii Soomaaliya ku nool, oo culimo leh, oo mufakiriin leh, oo dhalinyaro leh, oo haween leh, oo cid walba leh, inay nala qaada dhigaan ayaan jecelnahay mashruucan haddii la yiraahdo. marka waxaan ka hadlayno maanta waxaa waaye waxaa loo yaqaano alfikr. albidaaya hiya alfikr, inaan bal fikirno. iyo tan labaad aan ka hadli doono khitatu najaax fi suurati alcasr. furaha guusha ee ku jira ama qorshaha guusha ee ku jira suuratu walcasri, suuratu alcasri, walcasri ina alinsana, ama cawaamilu najaax dheh ama miftaaxu najaax dheh, furihii guusha dheh. marka walaalayaal, maadaama waddo dheer ayna sugayso, waddada loo marayo mashruucu nahda waa waddo aada iyo aada u dheer, una qalqallooc badan, muddo dheerna lagu socon doono ilaa laga gaarayo natiijo wanaagsan oo wax ku ool ah. marka wax walba waxay leeyihiin bilow ayay leeyihiin, sidii horey aan u sheegay. marka anagu ka bilaabi mayno sifir, ka bilaabi mayno eber, ka bilaabi mayno. dad hore oo culimo ah ayaa kasoo shaqeeyey mashruucan, kasoo shaqeeyey. soomaaliduna marka hadda eber ma taagna, oo eber ma taagna, oo meel ebera oo garoon ah ma taagna, bal waxa waaye waxaa la hayaa mashaariic fara badan ayaa la hayaa. mashaariicdaas marka waxaa la rabaa in la isku dubarido. marka mashruucani qaybtani marka waxaan ka hadlaynaa alfikri. fikirka
halkuu ka imaanaya. saan ognahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wallahu akhrajakum min butuuni ummahatikum laa taclamuuna shay-an. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idinka soo saaray caloosha hooyooyinkiin calooshooda wuxuu idinka soo saaray adinka waxba aan ogeyn. taas waa dabcan waa shay badiihi ah oo la ogyahay qofku inuu dhasho asigoo caruur ah, laakiin nolosha ayuu wuxuu ka qaataa fikir. wajacala lakum asamca walabsaara walafidata lacallakum tashkuruun. marka ilaahay wuxuu idin yeelay maqal aada wax ku maqashaan oo maxaa caalamka maxaa ka socda, maxaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. wal absaara iyo arag, adduunyada maxaad kusoo aragtay. awalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina kana akharuhum mushrikiin. wal absaara inaad indhaha wax ku aragtid, iyo wal afidata qalbiga inaad wax ka aragtid. haddaadan indhaha wax ka arkin oodan dhigaa wax ka maqlin, walba qalbigaadu ha shaqeeyo. lacallakum waxaad mudantihiin markaas tashkuruuna inaad shukrisaan oo ilaahay aada ku shukrisaan. marka idan markaas meeshaas waxaa nooga muuqanaya inaanu fikirno. haddii aanan fikirin waxaan noqonaynaa caruur baan noqonaynaa. in lam nufakir fa naxnu atfaal nalcabu maca alatfaal. caruur iska ciyaaraysa ayaa noqonaynaayo boombalaha iyo ubaxyada iyo waxyaalahaas iyo ku ciyaaraysa ayaa noqonaynaa. walaalayaal, marka alcaqlu nicmatun min allah. caqliga iyo garaadku waa nicmo ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala. fa huwa manaatu takliif. meesha dadka waajibka ilaahay uu ka saarana waa halkaaba manaatu takliif. meesha oo takliifka uu qofka uu ka fuulayana waa caqliga waaye, waa qaangaarnimada. marka caqli hadduu helo wuxuu gaaray marxalatu nuduuj, marxalad oo bislaasho. annuduuj naadij waayo, waa qof bislaaday oo caqligiisu oo bislaaday oo qaangaar ah oo mas-uul qaadi kara, naftiisana mas-uul ka qaadi kara, mujtamacana mas-uul ka qaadi kara waayo. waxa uu sheegayana dareensan, ilaahay qaabka loola xiriirana og. marka yumayizu bayna annaafici wadar, wuxuu kala saarayaa waxa anfacaya iyo waxa dhibaya ayuu kala saaraya. markaa saas darteed waxaa waajib ah an nuxarira cuquulana min ataqliid alacmaa. ataqliid alacmaa haya raac inaan noqon. haya raac mashruuc nahda marka ma aha mashruuc oo haya raaca ma aha. waa la yiri iyo way ahaan jirtay iyo saasaan ahaan jirnay iyo aabayaashii saasay ahaayeen iyo heer hebel waa sidaan iyo marka waa iska haya raac, wax aan loo haynin daliil iyo burhaan aan loo haynin. marka awalu lmashaakil waxaa waaye anlaa nufakira biru'uusina, inaana maskaxdeena marka koowaad aana ku fikiraynba, inaananba fikirayn. anlaa nufakira biru'uusina, maskaxdayna caqligayna inaana ku fikiraynin. alqur'aanu alkariim aladi anzalahu allahu min fawqi 7 samaawatin yaxuthuna cala altafkiiri walta'amuli wannadar. qur-aanka ilaahay noo soo dejiyey aladi laa ya'tihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih inahu tanziilu min xakiimin xamiid. yaxuthuna cala altafkiiri walta'amuli wannadari, wuxuu nagu boorinayaa inaanu fikirno, inaanu wax fiirfiirino, inaan balgaraadkayna aan yaro kor u qaadno. waxaa culimmadu yidhaahdaan halkaas ilaa 70 mar ayaa kelimaadkaas ay ku soo arooreen oo caqliga ka hadlaya. marka qofku waxaa la rabaa annadaru fi cawaaqib lumuur, umuurta cawaaqibteeda inuu ku fikiro. marka caqligaygu marka wuxuu gaarsiinayaa inaan bal fikiro. xataa cibaadaadka waa in lagu fikiro, oo qofku markuu cibaado samaysanayo waa inuu yidha war cibaadadan maanta maxaan ka helayaa. salaadan maanta aan dukanayo oo duhurka ah ama casirka ah ama maqribka ah ama cishaha ah ama sunnooyinka ah ama xajka ah, waxaan maxaan ka helayaa, maxaan ka helayaa horta maxaan ka helayaa. marka qofka waxaa usoo baxaya ajir baa usoo baxaya, inuu berri ku gaarayo ridihii ilaahay ayaa usoo baxaya. marka qofka waxaa waaye waa qof aada iyo aada marka u fikira ayuu noqonaya. marka waxaa la yidhahdaa alcaqlu yusaacidu fi fahmi lmashruuc. mashruucu nahda marka inaad fahamto waxaa kugu saacidaya caqligaada, garaadkaada heerka uu la egyahay. haddii garaadkaada uu leegyahay uu yahay garaad caruurnimo hadduu yahay
ma fahmi kartid. haddii uu yahay garaad dadka wax magaradka ah ma fahmi kartid. haddii laakiin garaadkaad uu yahay garaadka dadka waaweyn oo mufakiriinta ah oo kale haddii uu yahay waad fahmi kartaa mashruuca dib u dhiska Soomaaliya inuu maanta meel walba uu ka bilowday, dibadda iyo gudaha uu ka bilowday, aduguba waad fahmi kartaa. marka dadka qaar waxay yiraahdaan ama dadku waxay u kala baxeen saddex qolo ayaa loo kala baxay. dad waxay leeyihiin adduunyadan gubanaysa oo ahlu sharki ay seefta ay la baxeen oo meel walba ay qarxinayaan, oo Soomaaliya maalin walba oo qarx ka taagan yahay, oo hoteelada la isku qarxinayo, oo wadooyinka la qarxinayo, oo dadkii masaakiinta iyo marastii guryahooda loogu soo gelayo, oo dadkii cuqaasha ahaa mufakiriintii la dilayo oo la tooganayo. waad maqlaysid maalin walba nin sheekha ayaa la dilay, nin mufakir ayaa la dilay, nin dhakhtara ayaa la dilay. tii ugu dambeysay hadda aan maqlayna waxay ahayd hotelkii Naasa Hablood dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho. marka waxaan waa wax istimraara oo wax soconaya weeye. marka taas ayaa dadka qaar waxay leeyihiin war balaayaaba ahlu sharki ayaaba maanta dadka ka seed caleeyay, ka sara maray. marka ma fikiri karno ayay leeyihiin dad ayna ma fikiri karno. marka in laga hadlo mashruuc dib u nooleyn waa nooc kamid ayay yiraahdeen waxyaalaha mustaxiilaadka ah. waxaan dhihi karnaa kuwaasi kuwa isdhiibay waay, waa isdhiibeen, xaqiiqatan waa isdhiibeen. وهذا يسمى عندهم اليأس الفظيع القاتم. waxaa la yiraahdaa waa quus madow oo mugdi ah waaye. dadka qaybta labaad waxay yiraahdaan markii mashruucu nahda loo soo bandhigo waxay u arkaan sidii layl qabow oo dhanka bari kaga timid, ama biyo qabow oo cabayaan oo xagga dhuunta ku soo cadanaya ilaa iyo laabta u sii degaya, ilaa iyo caloosha u sii degaya, oo biyo qabow ama markay maqlaana dhagahooda qabow ayaa soo gaaraya. markay arkaanna markaysa wax wanaaga ummadii loo qabtay, oo dhulkii la dhisay, oo wadooyinkii la dhisay, oo ummadii wax baranayaan, oo jaamacad ay baranayaan, waxay u arkaan maaragtay sidii ay rabeen inay tahay ayay u arkaan. mashruuca nahda marka waxay la garab istaagayaan hiil iyo hoo ayay la garab istaagayaan markay maqlaan. dadkaas marka waxaa la yiraahdaa cindahum al-amal al-fasih. rajo weyn ayay haystaan. ninkii shaacirka wuxuu yiri ma adyaqa al-aysha lawla fushatu al-amali, ma adyaqa al-aysha lawla fushatu al-amali. nolosha maxaa ciriiri geliyay haddii rajo aysan jiri lahayn iyo amal iyo hididiilo wanaagsan. nin kale wuxuu yiri wa inna gadan linaadirihi qariib. biri oo iftiinkii ah oo mustaqbalkii ah oo Soomaaliya oo kamid noqota beesha caalamka mar kaleeto dib ugu soo laabata, oo calankeedii uu saas u babanayo, calankii buluga ahaa oo dhexda xidigta uga tiilay ee qaramada midoobay iyo maaragtay meel walba safaaradaha adduunka meel walba la tago. qofka Soomaaliyana uu noqday qof rajo leh oo himadiisu sare ay u tahay, oo aan meel laga soo celina aysan jirin, oo baasaboorkii uu noqday baasaboor Soomaaliyeed oo la yaqaano, oo lamid ah sida baasaboorada wadamada Carabta. waagii hore wadamada Carabta free ayaan u ahayn. marka waagii dad badan ayaa waxay garanayaan wadanka la yiraahdo Imaaraadka, al-Imaaraat al-Arabiya al-Muttahida, oo aniga aan tagay 93 ayaan tagay, anigoo dhalinyaro ah ayaan tagay. marka dadka dhalinyarada waaga looma ogoleen qofka baasaboorka Soomaaliga haysta dawaagii dawladiisa barray jirtay, looma ogoleen qofka Soomaaliga ah inuu xamaalo oo dhabarka wax ku qaado, looma ogoleen inuu taksila noqdo, looma ogoleen. wuxuu ahaa qof musharraf ah oo sharaf leh ayuu ahaa. marka wuxuu ka shaqeynayay bangiyada iyo aeroboorada iyo booliiska iyo militariga iyo ayay dawladda Imaaraadka ay ku darsan jirtay waagii hore dadka Soomaaliyeed markay arkaan dad sharaf leh, ahlu sharaf ay ahaayeen. hadda laakiin waxay la mid noqdeen Pakistaaniyiinta iyo dadka maaragtay dhabarka ku adeegta oo gaari gacanada riixaya ayay kamid noqdeen marka Soomaalida. marka bangiyada iyo jaamacadaha iyo ayay mudiirka ka ahaayeen oo booliis ay ku jireen. marka waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo
kamid ah ciidamada dowladda imaaraadka, xataa sacuudigana saas baanu ahayn. marka sidaa inaan noqono mar kaleeto waa dad badan ayaa waxay qabaan rajo ayay qabaan. qaybta saddexaad marka waxaa waaye waa qayb ma arkaysaa la yidhaahdo bayna laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaai. qoladii horena lama jiraan, qoladaas labaadna lama jiraan. marka waxaa waaye waa kuwa meel iska fadhiyo waa kuwaas. marka kuwaas waxaa la yidhahdaa halkiina iska fadhiya inta laydinkaga yimaado oo Soomaaliya sare ay u kacdo. marka caqliga marka aan leenahay waxaa la rabaa inaanan waxyaalo beena aanan isku qancin. waxyaalo beena inaanan isku qancin ayaa la rabaa. waxyaalaha qanaacaadka ah oo qofku isku qancinayo waxaa la rabaa inay noqdaan waxyaalo wanaagsan inay noqdaan. marka qanaacada ayaan ka hadli doonaa haddii la yiraahdo. qof baa waxaa laga yaabaa inuu shay baadil ah ama shay wanaagsaneyn oo khalada uu isaga qanco oo ictidaaraad oo aan soconin oo cudurdaaro aan soconin uu ka bixiyo. marka waxaan soo qaadanaynaa ayadda ah anagoo barnaamijkan rabna inaan soo koobno ma aha saacad dheer inuu iska qaato maaha, waa in kooban oo 30 daqiiqo haddii la yiraahdo. marka walaalka Soomaaliyeed ama walaasha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa yara inay ila fiiriyaan ayadan. يقول الله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هل كيف ترتارت في أي سورة هي؟ سورة القيامة. محانو صدورني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إنسان كبني آدم نفتي سأسيقا يا أركيا ولو ألقى هديه ردانه معاذيره cudurdaaryaal haba ku dul rido wuu arkaya. marka culimadu waxay yiraahdeen ayadaas fasiraya oo mufakiriinta ah al-insaanu wa in xaawala an yujaadila aw yumaari can afcaalihi wa aqwaalihi allati yaclamu min nafsihi butlaanaha aw khata'aha. haddii qofka insaanka ah oo isku dayo inuu dood keeno afcaashiisa iyo aqwaashiisa uu og yahay inay baatil ay yihiin ama ay khaladba ay yihiin oo ictidaar uu sameeyo akhda'diisi biictidaaraad kaleeto. qofa waxaa le waxa kan maxaad u samaysay, markaasuu wuxuu keenayaa cudurdaar waahi ah oo daciif ah oon soconin ayuu keenayaa. laakinahu yacrifu alxaqiiqa fii baatinihi. xaqiiqdii ayuu og yahay baadinkiisa. haba isku dayo qofkaasi inuu ismaldaho ama isqariyo, dadka indhahooda iska qariyo. marka qofka marka cudurdaar been ah keenaya qofkaasi waxa waaye aragtidiisa iyo fikirkiisu waxa waaye nolosha uu ka qabo waa sadxi, fa huwa al-khasiru akhiran. ugu dambeystana waa midkii khasaaray waaye. marka waxaa la yiraahdaa qofku cudurdaar beena marna inuu keeno ma aha. qofka la yiraahdo mashruucan Soomaaliya ayaa wax lagu qabanaa, ummad baa wax lagu qabanaya, inuu maaragtaa oo cudurdaar beena uu keeno taasna meesha kuma jirto. marka qofku waa inuu yiraahdaa limaada fashilna, maxaan u fashilanay, ummadaha maxaan uga daba marnay, Afrika, Ethiopia, Kenya iyo dowladaha dariska nala ah maxaan uga dib dhacnay. waa inuu isweydiiyo taas limaada fashilna. marka anigu kusii dheeraanaynin taas waa fikir noo wada yaallo waaye. aniga iyo adiga iyo qofkan saddexaad, aniga iyo adiga iyo qofka saddexaad oo na dhageysanaya waa inaan ka fikirno oon dhahno maxaan u fashilnay, maxaan u jabnay, maxaan u gaari weynay furihii guusha maxaan u gaari weynay. marka hadda waxaan usoo gelaynaa qaybtii labaad oo ahayd khitatu najaax, furihii guusha, cawaamilu najaax, waxyaalaha guusha ku gaarsiinay ama miftaaxu najaax. marka si yara degan waa inaan u akhrino suuratu al-casr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عجيب. سورة قصيرة 3 آيات وسدح آيات سورة ير وعجيبة. قرآن كلميرة ويريه لميرة. قل هو الله أحد ويرتع لميرة. قرآن كل جيس وحوى حجة واي. فأتوا بسورة من مثله فأتوا ب10 سور
hal suurad keena ayaa la yidhi, 10 suuradood keena ayaa la yidhi, iska daaya aayad barkeedna ma keeni karaan. marka qur-aanka wax yar maba ku jiraanba. marka aan bal eegno, laakiin anagu intaanan eegin ka hor yaa eegay, waxaa eegay asxaabu rasuulillaahi ayaa eegeen. waxaana loo soo wariyey kaana rajulaani min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama ida iltaqayaa lam yaftariqaa ilaa an yaqra'a axaduhuma cala alaakhar suurat alcasri. laba nin oo asxaabu rasuulillaahi ka mida sala allahu calayhi wasalama haddii ay kulmaan kalama tegi jirin ilaa qofkood qofka kale inuu ku dul akriyo mooye suurat alcasri. limaada? liannahum fakaruu wa fahimuu muqtadaa hadihi الsuura alqasiira. taa ayay arkeen. marka sidoo kaleeto fakara alimaamu الshaafici imaam axmed ibnu idriis raxmat ullaahi calayh. alimaam الshaaficiy, dadku shaafici iska yirahdaan, laakiin waa in taariikhdiisa dib loo akriyo. cindahu caqlu naadij wa cilmun waasic. cilmi waasica ilaahayna wuu siiyey, fikr naadij ah oo bisilna ilaahay waa siiyey. marka wuxuu yidhi, markii uu fiirfiiriyey suuraddan, markuu fiirfiiriyey wuxuu yidhi low maa anzala allahu xujatan calaa khalqihi ilaa hadihi suura lakafathum. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan usoo dejin lahayn khalqigiisa ilaa suuraddan mooye lakafathum wayba ku fillaan lahayd. maxaa kale ay yidhaahdeen culammadu, ama asigu uu yidhi sida ay soo sheegeen, soo wariyeen, low fakara annaasu fi hadihi suura lakafathum. dadku hadday ku fikiri lahaayeen suuraddan way ku fillaan lahayd. marka suurat alcasri waxaan u qaybinaynaa 6 qaybood. laanna muxaadara maahan, mogtaa kan muxaadarada iska caadi, dadka dhamaa iska dhegeysta muxaadara. laakiin muxaadaradan waxaa waay mashruuc nahd ay ka hadlaysaa, mashruuc dib u dhis, dib u nooleyn soomaaliyeed, dowladnimo soomaaliyeed, qarannimo soomaaliyeed sida lagu gaaraa ayay ka hadlaysaa. marka walcasri wa huwa zaman, alcasri waa zamanka aan ku noolnahay. wa huwa cumruka ayuha alinsaanu, waa cimrigaada aada jirtid, waa cimrigaada intaad jirtid. awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara. miyaanan cimri ku siinina lagu leeyahy maalinta aakhiro, ood wax ku xasuusatid, ood wax ku fahamtid. 15 sano miyaadan gaarin? miyaadan cira kaa soo bixin? miyaadan gar lahayn? miyaadan culimo ahayn? miyaadan culimo maqal? waa lagu weydiinaya waxaasoo dhan. cumrika waayo. marka ilaahay waa ku dhaartay, zamanka ayuu ku dhaartay. waxaa kaloo la yidhahdaa walcasri hiya salaatu lcasr. wahiya salaatu lwusta, waa salaadii dhexe wey. ina alinsana lafii khusrin. insaanku hina jinsiya, asha halkan ku jirta waa aljinsiya tastaqriq kula linsaan. kulli insaan oo dhan way qaadanaysaa. ina alinsana lafii khusrin, khasaaro ayuu insaanku ku sugan yahay haddii uusan zamanka uu ku jiro, hadduusan ka faa-ideysan. wa hum aladiina laa yudrikuuna qiimata zamani. zamanka ay ku nool yihiin. waxaan xasuustaa culimmadu wax badan ay ka hadlaan alwaqti wazaman. qiimat lwaqti cinda alculamaa, kitaab la yiraha inuu jiro ayaan u malaynaya. qiimat zaman cinda alculamaa, abu gudda sheekha la yiraahdo wuu qoray, saan u malaynayo. marka qaybta kood waxaa waaye walcasri waaye, khidatu najaax ayaan rabnaa in kasoo saarno halkan. kow waxaa waaye in qofku zaman uu fahmo inuu ku jiro. laba waxaa waaye ina alinsana lafii khusrin, insaanku khasaaro ayuu ku sugan yahay. tan saddexaad waxaa waaye ila aladiina aamanuu wa camiluu الصaalixaati. ila aladiina kuwii mooye aamanuu, iimaan laga helay. marka halkan maxaan ka faa'iideynaa aliimaanu shartun fi camaliyati الnajaax.
iimaanku shardi wuxuu u yahay inaad adigu aad maaragtahay aad guulaysatid fi daarayni labada daarood adduunya aakhira inaad guulaysatid iimaan arkaanul iimaan الستة marka mu'miniintu marka saddex ay u kala baxayaan mu'min yatlubu ad-dunya faqat mu'min adduunya kaliya raadsanaya adduunya bis ayuu raadsanaya kaas marka waxaa laga yaabaa inuu adduunya aakhiraba uu khasaaro marka maadaama adduunya kaliya uu doonayaba mu'min wuu yahay wuu sheeganayaa kaas marka iimaankiisa waxaa la yidhaha إيمان الدعي هو شاغنيا ليس حقيقة معه هي مؤمن يطلب الدنيا والآخرة مؤمن راتسنيا الدنيا آخرة راتسنيا فهو ينجح ويقول سنيا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مؤمن يطلب الآخرة فقط مؤمن رادنا يا آخرة كليئة راتسنيا وهي الأهم ومد ومهمسن marka walaalayaal adinko maadsan shaacirki wuxuu yiri daqatul qalbi qa'ilatun innal hayata daqa'iqun wa thawani farfa' li nafsika ba'da mawtika dhikraha fadhikru lil insani umrun thani yuha shaacirkaas Ahmad Shawqi amir ash-shu'ara wuxuu yiri daqatul qalbi qa'ilatun وضنه قراعيسي وحو ليهاي إن الحياة نلش دقائق وثواني هو فكري عنده فكر الشاعر المفكر دقات القلب قائلة إن الحياة دقائق وثواني نلش والدقيقة ضوء البرقسية سيد هذا الموبايل كان إياه لو كلاته ساعدي وحسابنا يا دق 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 أيو كسينا يا ماركيسان marka waa ilbiriqsiyo adduunya dhanaa ilbiriqsi waa dhag dhag marka wuxuu yiri farfa' li nafsika ba'da mawtika dhikraha naftu way dhimanaysaa qabriga gelaysaa nahnu saa'iruna ila al-qubur baan u soconaa kulligeen marka wuxuu yiri naftaada sare kor u qaado si loo xuso markay dhimato kadib si loo xasuusto fadhikru lil insani umrun thani in qofka la xasuusto waa umrigii labaad waa marka xawalku ilaabi qabri ku urur intaadan noqon umada waxa soo bandhigtaa wax wanaagsan u soo bandhig quraanka markaad akhriso fi surati as-safat waxaad ku arkaysaa nabiyal badan ilaahay way sheekay marka ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun sidaas ayaa ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala nabadgeliyo nabi musa allah yeelo nabi ibrahim allah yeelo نبي نوح الله يلو ماركيسا كل جود وحيان عباد الله المخلصين أيها كل جود ماركيسا مركا وتركنا عليه في الآخرين كوي دنبو حنوة تجني إني وناك يكون شيئان ضد كي دنبو تاريخ ذي دنبو أيا حصوصتي وضد كي دنبو دن وحليهم سلام على محمد سلام على إبراهيم سلام على عيسى سلام علماء marka waxaad arkaysaa dadka u soo halgameen oo umada wax bareen oo macallimiinta ahaayeen oo umada maarta u soo halgameen in maanta la akhrinayo taariikhdoodii hadii Soomaaliyiin iyo hadii Carabiyiin marka waxa kale aad uga xumahay Soomaalidu ama wadaadada Soomaaliyeed inay kaliya isku soo koobeen in culimadii muslimiinta oo salafu saalix oo carabta bisla laga sheekeeyo لكن ما أنت إن تاريخ ذي صوماليات أو علماء ذي صومالية تاريخ ذي أنت أنا عن لكل مي علماء ذي أنا عن لكل مي سيد الشيخ محمد معلم حسن أو كلاي الشيخ إبراهيم سولي أو كلاي ماركيسا الشيخ علي الصوفي أو كلاي علماء بدن الشيخ حسن عدائي علماء بدن أو جريوتا يجرتو صوماليات هنا بلغ هاد اللي نبع ولا سويدين علماء ذي صوماليات بقى كوا نولنا هذا عن اهتمام بالسيين نيمة مركا وخسارة واي مركا